بدنا iska bedelay kasabuma si wadi kar intaas ka badan سلام هوين اللهم حريستو وكحونا هلول إنهم كسو حسوسيي وجدكينا waxa uu yahay dhalinyarada waalidiintooda caasiga ku ah in ay garowsadaan in waalidka inta ay nool yihiin loo baahan yahay lagu duceysto haddii mar ay geeriyoodaan waa tabaysaa waalidkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسر وهذا هبال تي في برنامج كجيريد والدك مقعيقة وشرماك أبو كر برنامج كجيريد والدك وبرنامج تضباط ولي بمرعات كداوتان هبال تي في وجيت كبرنامج كان وحق وياهي إن لقوع يجيلي يردلن يرد والدين تود أي نوليهين إيه حدنا عاسق كوه سوى لبا wax loogu sheego ma fahmayaan ilaa la tusako waalidiintooda ay geeriyoodeen xanuunka ay dareemayaan barnaamijkan ujeed kale kama lihin ujeedkiisu waa sida barnaamijka toddobaadkan waxa marti ku ah Xawlul Cabdul Ubayd oo ah wariye ka tirsan Hubal TV Xawlul soo dhawow barnaamijka geerida waalidka sharmaarka waa mahadsantahay Xawlul waqtigaaga aad barnaamijka u hortay inaad uga qayb gashid waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa in aan ku weydiiyo Xawlul xilligii korinshaha hooyo Allah u naxariisto maxaadan ilaawin oo xasuustaada ka go'in oo aad xasuusan tahay ona la wadaagi kartaa sharmaarka waa mahadsantahay marka la yiraahdo waalid siiba hooyo horta hooyo Allah u naxariisto waxaan waayay waalidkay labadeed waalid mid kamid ah siiba hooyaday Allah u naxariisto waxyaabo badan oo xusuus ah jirto marka laga hadlayo hooyana ayada dhanaaba xasuus ah markii aad aqliyeystay ilaa iyo xilligii ay dhimanaysay ayaa hooyo la noolaa erey kastoo ay ugu tiraahdo ama hadal kastoo canaan ay ugu tiraahdo ama si kasta oo ay iwaaniso waxay ahayd xusuus qurux badan oo aan qalbigay ku haysto marka hooyo ayada dhan ayaa ka samaysan xasuus waayahay Xawlul su'aasha labaad aan rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay Lul xilligii aad maqashay xitaa ama goob joog u ahayd geerida hooyo Allah u naxariiste markaas maxaa sameeynaysaa dareenkaaga sidoo ahaa naxdinta iyo wixii aad maqashay isbedelka dareenkaaga sidoo isku bedelay waxay ahayd sanadii 2009 bishii December waxaan qaxnay maadaama dagaal uu markaas Muqdisho ka socday waxa uu qaxnay suuqa xoolaha xaafad suuqa xoolaha hooyo xanuunkeedu wuxuu ahaa xanuun markaas soo bilaabanay marka qaxnay oo halkaas tagnay hooyo aad bay u xanuunsanayd waa xasuustaa maalintii ay geeriyoonaysay muddo ay xanuunsanayd waxay ahayd subax 4 saac subaxnimo ee ahayd ani waxa ka imaado suuqa oo alaab la igu diray markaas gurigeena maadaama hooyo aad u xanuunsanayd waxa joogeen asxaabteena ehelkeena hooyadeed hadda Allah u naxariisto aydan way geeriyootay walaalahay joogeen abtiyaashay joogeen ehelka iyo qaraabada qofna kama maqnayn maadaama hooyo aad maalmahaas ay u xanuunsanaysay waa xasuustaa subaxdii suuqa la diray suuqa markii aan ka imaaday ayaa meel deed ah oo hooyo markaas ay jiiftay ku leexday adeeg markaas soo dhigay deedkan ku leexday deedka markaa ku leexday hooyadii markaas muddadaas hadalka way gabtay maadaama aad ay u xanuunsanaysay waa ku leexday waa hooyadii lugaheeda ayaan fadhiistay markaas habaryaashay iyo eedayaashay iyo wixii qaraabaa meesha joogeen hooyadii lugaha ka fadhiistay waa subaxdii ay geeriyoonaysay markaas adiga wax 5 daqiiqo camal ah ay markaas hooyo si noolayd waxa arko hooyo hamaansanaysa waxaan dhahay marka dad iga waaweyn wada ahaayeen way dareemeen in markaas nafta markaas ay ka bixisay markaas waxa loo wacay walaalkay oo nagu weynaa iyo abtigay oo meel ayadana barandada camal ugu quracanayeen loo waxa la kala yaasimiya markaas ay waagi ugu bariyay waxaan garowsaday in hooyaday ajashi ay u timid yaasiinka marka lagu qabtana hooyo nafta ka baxday waxa ahay qofkii intii ay dhashay aniga iyo wiilka walaalkay ah iyo gabar Saacdiye la dhaho oo aniga weyneed markaas aydan soo cararto dhar dhaqaysi
markii yaasiinka markii la yaasiimiyay hooyo nafta way ka baxday waxa bilowday in dadkii ay yiraahdaan hal isku leexiyo halada markaas maxay ugu dambeysay xusuus ahaan iyo in macnaha uu dareemi kartaa qof waalidkiisa oo dhintay waqti ka hor waxaan naga tagay aabahay oo aydan subaxdii intuu soo maray salaan oo imaaday marka hooyo way dhimatay markaa maqlay oo la yaasiimiyay oo la isku leexiyo oo mara loo saaray waa soo cararay qolkaas oo gal marka waxaan bilaabay dareemi kartaa laakiin xoogaa waa is adkeeyo markaas waxaan wacay aabahay aan wacay koob sidoo kale waxa walaashay Sahro la yiraahdo oo aydan naga weyneed oo Saacadiye ka sidaad ka weyneed oo markaas aydan xanuunsaneed oo isbitaal subaxdaas loo waday labada markaa u sheegay markaas aniga markaas waxa soo xasuusanaa hooyo wajigeeda iyo waxa la horkeenay dareenka markaas ما أقرأ سدون قنتاس كبدن كم شيء كرر لكن الله ونحرسته إلها نرجع عضي وأنا سنة هيقف كستمان إنه ليه هي لكن هاي درين حنون بدن أو مركز مروي وأبورتي ومركا إلى هذا أنك شيء حسوستي السكر عين قطع مركا إلها نرجع عضي الله ونحرسته إلهنا قبرك هون نوري وجنة إلهي حكوا عسوم وياي لول الله ونحرسته هاي jannadana Allah idinku kulmiyo qof waliba waalidkiisa dhinteenna jannada Allah kulmiyo lul hooyo markay geeriyootay kadib ka waran bal nolosha maxaa iska bedelay markaas iyo hadda dhan waliba noloshaada bal ka waran badana iska bedelay kasabuma si wadi kar intaas ka badan سلام هوينا اللهم حريسته وكحونا هيلول إنهم كسو حسوسيي وجدكينا waxa uu yahay dhalinyarada waalidiintooda caasiga ku ah in ay garowsadaan in waalidka inta ay nool yihiin loo baahan yahay lagu duceysto hadii mar ay geeriyoodaan waa tabaysaa waalidkaaga wallahi sharmaarku wax badan iska bedelayo waa dareemi kartaa qof markuu waalidkiis waay siiba hooyadan oo soo korsatay ku dhinsheen qayb way ka qaadatay ma jecli dareen noocan oo kale inaan ka shaqeeyo laakiin kulay hooyo ma soo noqonayso waan waxaan dhan wada sugaay marka wax badan iska bedel runtii waa dareemi kartaa hooyo oo kuwaani jirtay wax ku sheegi jirtay marka xanuunsato xanuun kula qaybsan jirtay marka walwalayso garabka inta soo fadhiisato ku dhaxaysa walwalin hooyo wax kasoo iska hagaagayaan waa dareemi kartaa marka wax badan iska bedelay inkastoo ay jiraan dad ugu xareeraysan oo aad nooga naxay laakiin dareenka hooyanimo sida ayada ay ku dareemaysa adigoo aamusan waa wax la heli karo runtii xasuusaha dib marka u gocdo waxa kamid ah marka maalmahaas markay geeriyootay kadib muddo waxa la xanuunsana xasuusteeda sababta ah qof marka arko dhahayo hooyo marka dhahayo caloosha ay huri jirtay waxa soo xasuusin jir hooyaday qof hooyo dhahan markaas muhiimsan laakiin waxa jira abaayaal booska hooyo ii buuxiyay si kastaba oo marka balwalay marka soo daaho kale isoo oo dhaho intay joogtaa sidoo kale ayayo kale oo ayadana nolosheena aad noogu walwali jirto oo soo korsatay ayadana Allah u naxariisto way naga dhimatay marka wax badan marka nolosheeda iska bedelay laakiin tii Alla la baaji karo qadartan waa ku qanacsanahay laakiin waxyaabo badan waxa jira oo kugu hareeraysan oo hadda dadka ii dhow xitaa aysan dareemin laakiin aan isleeyahay hooyo haday noolaaleed ku dareemi lahayd sababtoo hooyo marka qaarkood marka soo daa xitaa ama xaafado kale ku soo daaho ayadoo banaanka fadhida imaan jir waxay jirtay gabadheeda yaraankeyga maqan maadaama hooyo yaraan oo yaraankeyga maqasay oo jiifana marka imaado inta ii dholactay sidii jirta hooyo xaanka inta ku maqneed maanta adaa ku sugaay dhii jirta marka meeshii waxa ka baxday qof hooyo inta ku soo daahday inta ku dholactay ku dhaa inta ku soo daad maanta adaa banaan ku fadhiyay sidoo kale والله وحبضن عن ولا شيء إسكبدلي لكن وكانوا هاي الحمد لله هو أنا إلهي هون حريص مركز توحى كون والله حس كذا يحسوس كذا ويهلول
dadka isku mid ma aha inkastoo adiga xilligaas aad yarayd waxaa jira qof waliba marka ay xanuunka uu ku dhaco ama waalidkii ama hooyo ama aabo qof uu ka geeriyoodo waxaa jira eraya qaar uusan ilaawin waxyaabo meel uu ku qoro ku noodgareeyo wax xasuustaada markaas aad meel ku qortay ama aad xasuusatid oo erayaha naqdaan wax una aad kusoo xasuusatid ma jiraan walaahi maalmahaas ma jiro xusuus oo tix aan tiri sababta aan abwaan ma ihi markaas tix kugu soo dhacay sababta waxa la mudoonaysa qof dhan oo qaal kuga ah oo ku dhalay oo 9 bilood isug caloosh kugu soo qaadaa weys marka laakiin waxa xasuus in noqonaysa hadalkeeda qiimaha badnaa waanooyinkeeda iyo sidoo kale wax u sheegisteeda iyo sida ay noo sixi jirtay sida ay noo soo tarbiyeysay waxa soo dhan xasuusiya laakiin ma jiro xasuus tixan ka qoray waayahay lul su'aasha ugu dambaysa raba inaan ku weydiiyo waan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka ka qayb qaadatay dad waxaa jira waalidiintooda ay nool yihiin haddana caasi ku ah oo aan u naxariisan oo xataa bini'aadanimo aysan ku jirin oo dee aan fahmi karin qiimaha waalidka uu leeyahay dadkaas lul oo waalidkooda uu nool yahay aan ka faa'iidaysanaynin ee aan baariga u ahayn fariin noocee halkaan uga gudbin lahayd wallaahi Sharmaarko waxaan leeyahay qof kasta waalidkiis intuu nool yahay ka faa'iideysto sababta ah qiimaha hooyo ama waalid ama aabo kale waxa dareemaysaa marka waalidkaaga aweyso oo wax ku sheegi jiray maanta waa aragtay cunug kasta oo xun hooyadiis way jeceshahay hooyo waa dareen naxariis leh haddii wiilkeedu xun yahay ama gabadheedu xun tahay xitaa waxay ku leedahay waa awlaadeeda waxay isku daysaa wax u sheegto laakiin waxaa jira waalidka sidiisa banaanba waa wax toosiye waxaa jira ilmo xun oo waalidkood ku afcelinayo oo tarbiyada markaas tarbiya fiican lagu soo tarbiya laakiin isaga uu wada qaldan uu maray marka way jira dad oo badan oo dhalinyaro badan oo asaagee ah waalidkood hadda u nool yihiin oo laakiin ka faa'iideysan aan dareensaneyn nimcada ay haystaan tan waa adduunyo waa laga tagaa waxa qiimaha hooyo iyo aabe aad ogaan doontaa markii mid ka mid waalidka aweysa ama labadooda aweyso laakiin waxaan ku leeyahay maanta waa maalin aad ka faa'iideysan karto waxaad arkaysaa dad badan ama kumanaan qof ama malaayiin qof oo waalidkood weysan oo haddana maalin kasta daqiiqad kasta u ilmeeya haddii hooyadood ay arki lahaayeen xitaa inay ka duceysan lahaayeen marka waxaa leenahay waalidkan ka duceysta intay nool yihiin ka faa'iideysta waxaa lagu soo koriyay waa lagu dhalay maxaa la tarbiya lagu sii waxbaa lagu baray haddana ina wadooyin kala qaado waa laga fiican yahay marka waxaa leeyahay qof kasta oo maanta waalidkiisa haysto oo barnaamijkan daawanayo waxaan leeyahay ka faa'iideyso waalidka kana duceyso hooyada iyo aabaha xaqay kugu leeyihiin marka waxaa leeyahay laga faa'iideysto waalidka ilaahay inta xunna ilaahay soo toosiyaan ilaahay hadoodi xana tuso ama hadareensiyo xaq waalidkood ay ku nool yihiin ay ku leeyihiin aan leeyahay waxaan leeyahay dhammaan dadka daawanaya haddii gaf oo iga dhacay ama haddii dareenkiina uu isbedelay waa iga raali ahaada sidoo kale dadka dhalinyarada ah ee waalidkood hadda u nool yihiin waxaa leeyahay ilaahay ha soo hanuuniyo inta xun inta fiican dee waa waalidkood way u duceynayaan waalidkan xasuusno inta uu nool yahay iyo markuu geeriyoodo kadib labadaba xaq uu kugu leeyahay waayahay adigana aad iyo aad baa u mahadsan tahay xaawalul cabdulla cubayd oo barnaamijka geerida waalidka igala qaybgalaysay ayay ahayd luloo ku mahadcelinayaa waxaan rabaa barnaamijka geerida waalidka in aan idinku xasuusiyo in waalidiintaada marka ay nool yihiin aad u baahan tahay inaad ka duceysato marka ay geeriyoodaanna waxaad u baahan tahay inaad qabrigooda booqato una duceyso marka ay geeriyoodaan ducay kaaga baahan yihiin marka ay nool yihiinna ducaad uga baahan tahay caasinimo waxba laguma soo kordhiyo waxna kuma faa'iidaysa aakhiriya adduun inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka geerida waalidka waxaan idinkaaga mahadcelinayaa waqtigiina waxaad la socoteen Hubaal TV tan iyo kulanti dambe waa Sharmaake Abuukar Amiin oo idin leh nabadgelyo si lagaaga daaweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wajiga nabraha wajiga ama finanka ka soo baxa cambaarta iyo timo daadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaara dhakhtar khabiir ku ah daweynta cuduradaas horey u gaar Samakaal Hospital oo ku yaala degmada Hodan wixii faahfaahin lambarka shaashada kaaga muuqda